waxaad jirtaa sanadkan anu marka horeysa hay'addan u shaqeeya Ingiriiska Somali Media Entertainment hay'adduna sanadkan waxaan ururinay abaaraha bariga galbeed iyo Somaliland oo dhan dhammaanteed dad abaarihii saameysay waxaad jirtay fanaan ku jiray programka sanadkan la kaxeynayay oo ah Fanaanka Cabdi Hani Xaashi oo raacayay wafdi noo imani lahaa Ingiriiska sanadkan oo dowladda ku jirta ninkii fanaanka waxa dhacday lacag leedii oo gudoomiyahoodu yidhi ninka loola Axmed Wali Farole oo ahaa gudoomiyaha markaas iyo Xasan Duxul Laab Saalax gudoomiyaha imikana ayaa yidhi fanaaniinkeena marka la kaxeeyo lacag hore ayaa la siisiyaa advance payment loo advance payment ki 10,000 suru fiisiisi waxna ka xumaaneen sari lacag hore siisi marka lacagtii hore markaan siisinay 20,000 oo uu si dhaafay 5,000 fiisari alaabtii soo baxeen alaabaran oo kharashna uu sii weydiiyay oo idhi ECEB sidaan u haysto marka daymatid ay keentid oo ku jirtay saacad dahab ah oo ku jirtay gadgets yaal telefono iPad-yaal iyo markii fiisari soo baxday ninkii isbedelay yidhi ma doonayo intaan baxo intaan imaado Ingiriiska oo hawshan ma doonayo intaan fuliyo markii lacagtan sii siinay waxaan weydiinay shubqad noo soo cadaan lacag ku sino waan problem no wana raacaysaa marka waqad insurance ahaa soo si wuxuu waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda faafinta waxaan yahay fanaan qaran dad tahayna waxaan roonay noo soo cadee marka wuxuu noo soo keenay waqad oo recommendation letter la orado oo ka soo qoray wasiirka wasaaradda faafinta Usmaan Cabdullaahi Saxadiid oo le fanaanku wuxuu yahay is a member of the national artist group called xidhay geeska which is employed by the Ministry of Information of Somaliland bashaaru qaata lacagtan waqadan waxaad waqadii hore lacag loo siiyay oo cadeynte oo qofkaas intii yahay employed waqada lacag ku siisay wasiirka faafinta qofkii markuu diiday intuu baxo oo hawshii contract ula saxay wasaaradda arrimaha dibadda Ingiriiska iyo the Art Council England iyo hay'adeena markii aan u tagnay wasiirka wuxuu ku jawaabay maaha fanaaniinta xiriirkiisa maaha dad ka shaqeeya wasaaradda faafinta Somaliland Cabdi Hani waa la xiray waxa soo xiray taliyaha dhinaca New Hadley police station ku yaala New Hadley markuu soo xiray wuxuu yidhi waxa jirta arrin sidaas oo aad contractka saxiixday oo lacag aad sii qaadatay oo investment badan lagu sameeyay arrintii waxaa tiri ma doonayo intaan fuliyo arrintii sidaad u fulisid qasabay ku tahay oo contractka saxiixday haddii kale lacagtii soo celi investmentkii ku baxday la soo siiyay markii la xiray waxa soo dhaxgalay afyeenka madaxtooyada oo la Xuseen dhinacna ka tirsan oo xidhay geeska oo Masuul oo maamulka ku jira wuxuu u tiri taliyihii channelka police-ka wuxuu tiri channelka police-ka ana amarqa ana damir qaadaya ana Masuul qaadaya ana hawshan galaya ana labada dhinac isku keenaya labada dhinac markaan isku keeno ana ka dhaxlaya hawshan maadaama inaan yahay fanaankeedii hay'adana hawshan aan dusha ka ogaa markaas markii uu damir qaaday intuu labada dhinac isku keenay head oo balantu u qaaday channelka police-ka muufulin isluna balantii u qaaday istii labaad uu galay weentani 15 uu qaatay oo maxalonaya kharash ku baxay hay'adda tahay hantidii dowladda Ingiriiska funding siiso waxaan contract aan saxiixnay inta dowladda Ingiriiska sharciga waxaan ka soo ka codsan lahayn xukuumadda Silaayo sharci waa marinay hawshan
oo $40,000 oo investment ay dhashay tanina falxumay ku soo noqon doonta dowladda Somaliland haddii wax laga qaban laba nootayaan la saxnay oo cadayna oo ku qoran 15,000 oo lacag inta la siiyay kharashkii ku baxday hawsha iyo investment yaashii loo sameeyay Ingiriiska markuu mani lahaa marka waxaan ka codsan lahaa xukuumadda siraayo intay arintan ay dhexgalaan waxa jirta hawshan la ogaa maalintii la asaasiyay wasiirka wasaaradda faafinta Cadaani aan u tagnay aan qoranay mudane wasiir hawshan ara waqad soo saxay qofkaas waxa tiri waa shaqaale wasaaradda qofka wax ka qabo xadii kale hawshani intan maxkamadda marina weeyaan ceeb ku tahay fanka Cabdi Hani wuxuu noo sameeyay oo hay'ad ku sameeyay anu waxaan nahay dad doonayay wadanka oo Soomaaliland muwaadin Somaliland oo doonayay wadanka inta wax noo qabano abaaraha iyo waxaan u ururino marka waxaan ka codsanahay xukuumadda intay hawshan ay dhexgalaan ee talaabo sharci ee mariyaan noo taayiraan oo ixtiraamana sharciga oo ixtiraam u hayna weyn iyo maxkamadda waxaan codsanahay mar kale intay hawshan ay dhexgalaan ee talaabo sharci ee mariyaan kasta oo ku leh hawshan oo is cadaaladda ayaana kala saari doontaa maxkamaddana waan diin doonaa qof kasta ku jira arintan ee falxumada ka dhacday oo dad mas'uuliina oo ku jira yihiin